سفر كان شقي ومدحوينها جمهورية سوماليلاند مدن موسى به عبد وجوب حيدلك جيبوتي أي كدم بين مرتقات رسمية وكهلي مدحوينها جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر جيلي مدحوينها أي صنع شرف فقط إنتي أنا دولن ديارة قاضي عتب كتير صنع إذا مضى إلى لدى مدحتو يدا afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa ka waramay sodaalka shaqeeye madaxweynuhu ugu baxay Djibouti madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi hogaaminayo ayaa saaka socdaal shaqo ugu ambabaxay wadanka Jamhuuriyadda Djibouti kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu ka helay dhigiisa wadanka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay xoojinta xiriirka labada dal waxaana madaxweynaha ku helinaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga aad baad u mahadsantiin Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa.